siyaasi cabdiqali cabdilaahi warsame oo shir jiraad ku qabtay magaalada laascaanood oo qiimo ka mid ah warbaahinta la hadlayay ayaa uga mahad celiyay komishanka doorashooyinka Somaliland muddada ay ku dareen diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Somaliland oo muddooyinka u dambeeyay ka socday gobolka Sool isagoo lagu baaqay bulshada gobolka Sool inay ka faa'iideystaan muddada kooban ay komishanku ku dareen inay sii socoto codbixinta doorashooyinka Somaliland. isdiiwaangelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadinka leh waxay damiinata xaqiisa dastuuriga xaqiisa dastuuriga waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa halkan fariin uga dirayaa mar labaad iyo mar koobaadba inay isdiiwaan geliyaan jaaniska wacan ee la siiyey runtii isdiiwaangelintu waxay badbaadinaysaa masiirkeena siyaasadeed ee deegaanka gobolka Sool iyo Jamhuuriyadda Somaliland. isdiiwaangelintu mar hore waynoo timi laakiin kamayna faa'iideysan. waxaan bulshada reer Laascaanood mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koobaad uga mahad celinayaa inay isdiiwaan geliyaan fursadahan qaaliga ee dahabiga ee la siiyey. runtii komishinku inoogu kordhiyay muddo kordhinta maalmaha dhowrka cisha iyo komishinku inoo kordhiyay. runtii muwaadin isdiiwaangelintu muwaadin waxaa ku jira masiirkaaga siyaasadeed saad berito aan cidna kula gorgortamin maadaama aan nahay gobol ka tirsan gobolada reer Somaliland gobolada bariga Somaliland. runtii halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kastoo ka shaqaysay soo gaarsiisay kartida iyo dadaalka ku bixisay inay mar labaad dadkan diiwaangelin loo sameeyo. maanta halkan waxaan fariin uga diranaa bulshooyinka reer Sool. maanta walaalayaal waxaan joognaa waa waqtigii diiwaangelinta. maanta aad kaarkaaga qaatid baad berritana u codaynaysaa qofkaad jeceshahay ama qofkaad necab tahay. horta maanta aynu kaarka qaadanno muddo kordhinta leenoo sameeyeyna aynu ka faa'iideysanno. berritoole wixii markaa ololaha iyo musharaxnimaduna way inoo dambaysaa laakiin maanta waxa aynu ku dadaalanaa inaynu kaarka qaadanno. runtii wacyigelin badan iyo fariin badan baanu deegaanada ka soo jeeda u dirnay waana la isdiiwaan geliyay deegaan kasta oo diiwaangelintuna si nabad uga dhacday. ciidamada qarankana waanu mahad celinaa sida wanaagsan ay u sugayeen dhammaan sanduuqyada goobuhu yaalaan. runtii anigu waxaan ahay musharaxga u taagan golaha deegaanka degmada Laascaanood sanadka 2021-2025 insha Allah taala. muhiimadeedu maanta waxay tahay magacayguna waxa weeye cabdiqani cabdilaahi warsame. muhiimaduna maanta maaha inaadna kala dooranaysan qolyahayaga musharaxiinta waxa weeye waa diiwaangelinta inaanu kaarka diiwaangelinta qaadanno oo aanu kaarka ku dagaalanno. taasaa wax noo jaraysa qof kasta oo maanta reer Laascaanood oo qaan gaaray waxaanu u diranaa inay mar labaad xaafadahooda iyo guryahoodaba ay ka soo baxaan. runtii ilaa deegaanada aan ku soo jeedo sanadkan si wacan bay diiwaangelinta uga dhacday. runtii nabad baynu ku soo dhamaadeen. muddo kordhinta komishinku noo sameeyayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad uga mahadsantihiin sida wanaagsan ee markii aad aragteen bulshadiinii oo isdiiwaan gelinaysa aad muddadii u kordhiseen. waxayna qiraysaa maanta inaynu nahay dawlad buuxda oo dawladaha jaarka maanta aan la mid ahayn. runtii waxaynu nahay dawlad dimuqraadiyada oo halka maanta waxaynu soo gaarsiisay waa doorasho xor iyo xalaal ah. runtii doorasho xor iyo xalaal ah halka aynu soo gaarsiisay oo aynu dawladaha kale aynu kaga mid nahay. Afrikana waxaynu nahay dawladda koobaad ee number 1ka ee ku kala baxda doorasho xor iyo xalaal qof iyo nafti oo codeynaya.